بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن إذن سلامي سومالي وين ميل والبا أدونك إيغا داوانيسان هدي أتشوغ لهذين إيغا داوان لهذين يوتيوب شانال كيغا iyo haddaad iga daawan lahaydeenba baraha bulshada facebook ama instagram-kayga sawirahayga waad mahadsantihiin. cabdi naasir walaalkay waan ku salaamay soo dhawaaw. marka caaisha wacalaykum assalaam soo dhawow siista. number one waxaan rabaa inaan idiin sheega dadka baraha bulshada youtube-ka qoraaladiina waan akhriyaa oo waan la socdaa laafna waa idiin soo saaraa laakiin kama soo jawaabi karo because waqtiga igu ciriiri ah. laakiin aad iyo aad iyo aad iyo aad baan inkiga mahad celinayaa commentkiina. amaan waan ku salaamay soo dhawo system ah subscription iyo saara dadka youtube channelka. marka aada u mahadsantihiin 114 quraankan ku salaamay commentkiina. codkayga islow miya soo dheerayna hadda mi maqashiin haddana codkayga islow miya halo hadda ma lay maqla hurda hayso hurda u cil qabaa shalasa u seexday Baghdadi Hussein وعليكم السلام my dear brother how are you محمد لندن بريش واكو سلام walaalkay macaan codkayga hadda okay ma aho waa lay maqla ilham waaku salaamaha baryaro okay hurda haysa la yaabina hurdo shalay 9 saac u seexday xalay 9 saac ka kacadana ku laabtay had shaqo ma aadin maanta waa kici waa bee mar rab inaan idiin sheego shaqo ma aadin hurdo iga cad life ka daan ka baxa waa seexana hurdo shini hurda mar igu dhacay inaad ka seexdo baan rabaa. Hana you still sleeping ya akhay wake up. Okay Cabdi Naasir waa hurdaysanahay la yaabina I love you too Najmo. shaqa ma aadi karo been ma idiin sheegay hurdayga cad la yaab sanadkii hal mar saa noqda inaan hurdo baan rabaa waa hurda ay garabtiin iska keedayaan iska hurda hurda shaqadii waan ka haray wallahi ma shaqa ma aadin 3 saac galaha email aan u dirsaa ka arrinta xaq ku dhahay am sick because waan daalana hurda hayso sagal gay عبد الله والالكم السلام أمه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ككع شقي سيرة يستوي ليزنس عبد الناصر أوكي هيو كعايا شقة ما تشير لي قال له هنا فاندك وحكى الله ما سميسين متن مهم نماها متن كان أنا قبل هاي I will become فرنسي وقت كلا كبر سبتي أحد عن كدر شقة نور أليس كن سود وفاته وعليكم السلام. أوكي هرتو حان ربا إنا إذين شيء برنامج كي قبل الشلي أنك قبناي عنق كحضي نك عنق جيس حضي الدنيا دي لا يسوى ما يلاقي هذا المو هذا حضي عنق حضي بغض الشقة قبل كلها أنا مشان أود كله حر إماو كلها dad kala duwan baa isoo wacay dad wanaagsan iyo dad aan akhlaaq la soo barin iyo adaab aan la soo barin they need discipline. naag baa isoo wacay waxay tiri hana waa caytantaa haddaan dhahay aabbaha iyo awowga iyo eedada ha la shanay mar baan dhaha number 1 number 2 haddaan dhahay hooyadiisa xira aabihiisa xira ma hooyo aabba Soomaali xira ma hadda igu horreysay umalaysa meeqa hooyooyin soo xirtay وأنا وحية كسر الرأس قبلي مساكين أو هرجسة كتماد هو يدي إيشك وقاعدين كي رحوين تمو وحي الحرناي ما هو يدك لك وانا أكسنت
anigu dulmigaa neceba anigu laandheera ahay kana ahay agteyda lagama qor ismahaan soo dhawo xabiibti anigu marka laygu dhaha laandheeraha cusbiya saliid baa qabaa igu kicina qof ka laandheeraysan ma jirto waxaa laandheeraa kii jannada ilaahay galo inta kale waa huf marka naagihiina ay soo waca special naagta naga soo wacdo caytamayse anigu kulma caytama kowdhe aan kala xishoonno waa yeel baa tahay waa lii kaa soo sheegay waxa kuwadayna waa kusoo baari waxa kuwadayna wiilka isku qabiil baa tihiin qabyaaladana anigu ayron keeran taaganahay cuqdad iguma jirta abbaay qabiilka adigu qabiilnimo hadda inta isoo waa caytama igu tiraahdo ma caytama af lagu caytama iguma yaalo naagaha Soomaaliyeed oo aan leeyahana waa buurbuurantiin 300 kalaatiin kalsooni waa gabdhaha Soomaaliyeed igama xigtid hadda adigu 400 kiilo aad tahay am sorry laakiin anu naagaha Soomaaliyeed oo aan ku dhaganahay waa buurantiin nimankiin u shaqeysta waa gabdhaha walaalahay waayo cuqdadna igama gasho cuqdadna waligood iima qaadin ayagana happy ku ayna wax walba u sheega marka adigu hadda qabiil ku wadaayo ina adeerka anigu aan ku dhagay ina adeerkan igama xigtin ninka wax khalad sameeyay anu ila dhashtay adigu ilma adeera ka sheekeynaysiine marka waxa kuleeyahay weewe wixir isuga suga Facebook yes Facebook سوق قفا فيسبوك يقرأ ور إداء إلهي ما تقانا وأنا أقول بيج بان الله يهواكس السلام عليكم بيج بان الله يهواكس بيج كيغا واكاس بيج كاس الله بيج كاس سوقل سومالي وعليه ها 400 كيلو dadka xanaaqda 400 kiilo aati am sorry waxaan ka qaban kara malaha okay meeqa daqiiqo Facebook ku jira ii sheeg maamo program ka qaban lahaay daji wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mana caaytama anigu intaasaan kuu sheegaa dadka caaytamana waa nacibeeshkaygana laguma caaytama هذا رد كل شيء 6 دقيقة كشرة 6 دقيقة كدي مامضها وعى برنامج كقبنا عاو حكي كشرة هاي كولومبوس ورجيت كسوكعة نعيمة بنت سكيستاش 11 minute كمش نجمة سود هو ما يلاب أنا بنت كلا السعودية 11 minute كلها سوق فيسبوك فيسبوك نعيمة بنت سكيستاش 11 minute كمش نجمة سود هو ما يلاب أنا بنت كلا السعودية 11 minute كلها و 8 minute بان كشرة واو وسهية إنه حكى الأقول الواد قرحة where have you been لما دقيقة كلام عمدي ما وعى برنامج كان قبنا هرداء هاي سواسي سحنا I'm doing great هرداء هاي إسماعيل وتشي فكر أداء تشيف الأول تشيف الهاي قامص مربى وحاي خوات تلافونياش المدن 6 حبر دنقد كما كبح ذا ترين من ذا إيسو قريسة السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته codkaaga waa igu laciif khatar soo dhawo codkaaga waa igu laciif xoogo codkaaga وهذا بكود hadda okay way wax yar isu marka si ugu jira dhigin ma la maqla codkeeda gabadha walaashiina
xirsaa u jira codka ma la maqlaa soomaaliye hadda ma lay maqlaa sug ana kuu sheegaa in lagu maqlaa ay ha waa lagu maqlaa ay marka horta soo dhawaaw walaashay macaanta muhiim ma aha magacaaga inaan sheego laakiin magacaan kuu baxsanaa maama caashaan kuu bixinaa haye adduunka meeshaa ka joogtidna adun baa sheegi kartid meeshaa ka joogtid waa dhibaatada see kuu gaartay iyo dhibaatada ku haysana waa jeclaana inaan la wadaagsanin ummadda soomaaliyeed haddii wax laga qaban karana aan wax ka qaban karna wax ka qabana haye haye hore u soco waayo aniga gabadhayda markayga horeba ayadoo yar bay iga tagtay ha tagtee markii isugu kaayay dambaysa aniga ayada kaakuuma ku kala tagin sug 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 sug. gabar ilmo maa kaa maqan aa walaashay okay ilmaha ka gabadhaydaas nolol iyo geeri inay kaakuuma iiga tagtay aa iigu dambaysay sug 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 intaadan gabadhaada lagaa wadin ninka iyo adiga adiga aad isqabteen ninka ma laisku kiin daray ma idinka isjeclaateen ma colaad baa jirtay reerka dhexda ninkaan nina aniga si fiican u aqaana ma ahayn gabar oo aan saaxiib ee reerka saaxiib la ahayd baa i bartay si fudud oo igu soo galay oo saasaa isku guursanay awlaadeena kala qornayd alxamdulilah dada alla iga siiyey ase ahaatee ninkaan wuxuu igu nacay oo ugu weyn oo uu dhibsaday xataa faamilka xataa maamada hataa hayso ilmahayga xataa ay igu nacsan yihiin waa dad la-aanta dad la-aanay kuga arkeen dad la-aanay bay igu nacsan yihiin maamo aan faamil lahayn baan ahay hooyo lahayn aabba lahayn walaal lahayn adeer lahayn adeer lahayn abti lahayn ehel lahayn alla waxaan ahayn oo aan sugaayo ma jirto horta i dhegayso aabba la-aan ma tiid aabba soomaaliyeed baa ku daawanaya walaal 230 qofaa ku daawanaysa 230 qofaa kula dhalato abti ku oo ehel ku ah ha isciilin soomaaliya dhan baa kula dhalatay hadde aniga dad culamo aan u tagay xataa way ay jiraaneen oo wax igaga qabtay ama la hadlay oo yiri saanaa jirto ma jidho aan ku iri maasuusu ninka aan ku qaba magaalada aan deganahay rabbiga raxmaanka igu dhex quudiyo nina ay qaba hadda ninka ay qaban awlaad ismaanan dhalin laakiin waa nin aan waxba haysan ismaqalna alxamdulilah waa noolahay haddana okay aan ismaqalna ninkan ilmaha u dhashay yaa isku kiin daray si isku barateen abaaye waxaa isku baranay xero qaxootiya aan isku baranay xeradaas qaxootiga aan isku guursanay alxamdulilah gabadhaydana waa gabadha curadayda ah okay ninkan sugsu ninkan gabar baad ahayd asna nin buu ahaa okay marka lagu meherna soo waalid in lagu daramo waalidkaaga in kugu daramo badiiniyan yaa kugu daray waalid wuu imeher dhagayso walaala waalid wuu imeheriyey dadkii i koriyaa imeheriyey dadka ku koriye marka abaaye maamadii horta way dhimatay haye allahna laakiin odaygii waddankani aagaan ma joogo wuxuu u noqdo waddankii iyo halka iyo baadiyo u noqdo irjicii buu yiri waddankan meelaan joogi karo iyo awlaad farsan kara maaha haye marka waxaan ku weydiin waddankaana aan dhex jooga qaxooti ku ahay nairobi aa dhex taagana okay marka ninkii waa isguursateen ilma isku dhasheen maxaa dhacay marka abaaye reer anagoo degan baa naag lagu raadin jiray oo meel degan oo la dhihi jira naagtaan ehelka aan lahayn maxaad ku falaysaa iska fur haye fidno dhanaa laygala shaqeeyey alxamdulilah anna waxaan ahay qof cadkeeda dhacsato oo kulul been kuma sheega waxnana ma qarna beenna kuma shaqaysto arag waxna qofka waxa uu yahayna waa ku cadeeya waa ku qarxiya haye hana walaalatihiin dhacsataan ahay ani ee dantaa iga hiirisiiya garab la-aanta asaa hatay gabadhayda waa i dhaaftay gabadha kaxaynaysa kitaab ku martay hooyo iyo aabo iyo walaal iyo adeer iyo abti aan kugu hadlaynayo ilaahay abuurta ma jirto oo helaani
hooyo aniga haynin inaan mustaqbalkaaga iyo aayahaaga hagaajiyo gabadhaadana kuu koriya kuu ballan qaado okay marka alxaasil waxaa layla xiriiraya 4 bilood ay ahayd wixii ka dambeeyana gabadhaydii iyo aniga xiriir maanan lahayn ilaa up to now ismaqalna reerkaaneeto ninkan waa isguursateen 2 ilmood u dhashay ilmihii uu kaa labada ilmood shumuu kaa qaatay man wuxuu kaa qaatay marka ilmaha maya wiilkayga aniga waa la cararay waa la tegey alle iyo qaxootigii repatriationkii 1995 aan galay meelaana garanayn iyo dhulaana ku korin waxaana ka saynin baa qaatay aad meeshii ay anfici weyne kismaayo waa ka cararay xamara aaday xamarna dee gabdhaheeni iyo wiilasheena kuleejka aan ku wada kornay oo wax ku baran waxbarashada iyadoo aanan ka aqliyaysan aan kasoo cararnaan kasoo wada kaxeey baan meesha ugu tegey alxaasil dumaashiga ayaa isoo kaheeyey qol buu isiiyey wiilkayga ku haystay waa isfahmi weyne reerka wiilkaygaa la teg wiilkayga markuu arkay inaa aniga aan hadba meel taagana wuxuu yidhi ninkaan waa nin raga dhibaato inay kugu gaadhaa laga yaabaa oo hadhow wiilka lagaa dile wiilka nagu wareeji qadiijo ballan waxaa kaaga qaada maalinta saa ku igu wareejiso adna aad boosaaso aado ballan waxaa kaaga qaada wiilkaaga inaa nairobi geeyo 4 sano dambe wuxuu ku hayay 3 sano dambe 2 sano dambe wuxuu ku haystay camar kabacdina midka ilmahayga adeer ahaan oo aabihi ay hooyada iyo nusbaad oo soo tarxiilay baa wadankii asagii labadooda soo wada baxay nairobi imaadeen maabartaa loo keenay aniga waxaan ku soo noqday wadanka waa imid abba meersaa u aada waa imid markaa imid ilmahayga qaxootigu ugu dhex imid qaxootigii baan is aragnay wiilkayga wuu iraba gabadha waxay tiri gabar leey cunsiyayd waxay tiri hooyada inaad tahay anigu kuma sheegi kara laakiin duqda hooyada ayaa balaa u wada tagan ayaa iri markiiba duqdu markay artay waa qadinaabarta waa qadiija tiri waa hooyada hadda markaa borosaysay maraya aniga waa awooday inaan guriyo laakiin waxaa iri kelmadda aa iraa dembigaa gashaa aan eegaya garashadaadan bal eegaya anna garo wixii anna waa garanayaa wixii la gudboon inta u hees markaasay tiri hooye maalinkii ayaga dhan iska tacsiya noo taala way dhowr qof baa u tageeno oo Soomaaliya ay taqaano markaasay dheen tacsiya noo taala tacsida idinta maxay tahay leeyahay saydeen gabadhii baa imaatay boosaskay naga burburinaysaa anna ilaahay baa iga sareeyay inaan burbur markay dhaqaaqaan meesha aada guriga u sii nadiif jira qadada u sii diyaar jiray xajada iyo taa markay imaada ayagoo daalan biyahoodii waxoodii u diyaarsanay imaan jiray biyahoodii oo nadiif oo la xaaqay maalinkay baxaysana kitaabba waxay iigu martay cidaa kugu halaynaya inaysan jirin ee gacanta saa u saartay haye marka ilmi gabadhii bay kaa waday way waday waxayna tiri gabadhaas kasta ku anaaga hooyada ah ballan waxaa igu abeetay 4 bilood bas ila xiriirsa wixii ka dambeeyna way goysha baamada marka la hadlana cayba iigu jawaabaysa okay sug cunugtii kaa kaxaysay wiilkii adiga la soo xaray wiilkii aniga ay wiilkeedu dhalay iyo asaga ay wiilkayga waa la soo haray intaa keed marka gabadhii hadda waxa ka maqan waa gabadhii ku tagnay asaga ka tirsanaa waa la joog wiilkayga meesha wax kastoo dhan wiilkayga dartiisa u sameeyay hatta la dagaal xataa oo dibka aan raba inaan badiyo xataa waxa u joojinaya wiilkayga dartiisa okay hada aan fahmo marka gabadhii halkan ay aflagaado waxaan la igu sameeyay waa caliyay lillahi sharfay waxaan leedii jiray alxamdulillah waxa ka adkayba oogadaydii farjigayga ka jira oo alla ka cabsi ku beer okay marka gabadhaada inay kula soo hadashiyeen way diideen reerkii ma ogola xataa inay ila xiriirto lama ogola maxaa keena hooyo ii dhibay leedahay ilama joogto meel hebel jidaa jaamacadda jidaa kana jidaa ada hal xaasir mobilki waa ka go'ay haye reerkaasna Nairobi aa wada joognaa geeri xataa isuguma tagno lama hadlo ma raadiyo sababtaa ilmihii waa la ii diiday kan inta joogaaba xataa la igu diraayo la dhahaa ka carar habarta xitaa ehelka aan lahayn marka reerka markii aad la hadashay ayeydii markii aad la hadashay maxaa lagu dhahaa ii sheeg oo aad wacday oo aad ku tiraahdo warheedhe gabadhaydan u baahanahay maxay leeyihiin ilaa qofka bilo aaddig waxbaa loo sheegaa gabadhayda u baahanahay gabadha ii dhiibatanaada akhlaaq xuntaa waxaan hayn duqday ma dhaada xataa caayba iigu jawaabta
okay marka duqdi haddii sidaas tiri ilaa anigu reer dhanaa wada khaldan ma dhihi karee qof saxsan ma laga waaya reerka maamadaas aniga ilaa abtin oo odaga sodogay xataa waa la hadlo waxaan intaasoo sanaa ku sugaaye maxaa ii haysaabaa eri markaas wuxuu iigu jawaabay maandhay gabadhaada waa aan arkay gabadhaadana waxay ugu tiri habartaas xaqi iguma laan waxaan u jawaabay waxaan ku yiri adeerow gabadhayda inaa xaq ku leeyahay kitaab baa gacanta ku haysaaye waad og tahay maxaad iigu sheegaysuu yiri maandhay wax makuu sheega hadal ma karo iska sug waagay kuu imaado gabadhaada nambarkeeda isiisay way isoo wacda hadda qoraal ay iisoo qoriso waxa kugu soo celinaa sug ayja raali noqda iyo qoraal bay iisoo qortay isgoyna lama hadli karo ma qabanayso ha asalaamu calaykum wacalaykum salaam walaasha qoraalay iisoo qortay yaa waay markaas waxaan u qoray hooyadaa baan wala dhashtay habritaa baan ahay soo isaawac baan u qoray marka maxaa lagu dhahaye marka cunugta bay qasani kaa maqantay hadda gabadhan waxay maqan tahay 15 sano 15 sano maya 17 sanoay maqan tahay waxay maqan tahay 16 sano oyna kusoo raadinin oo inay soo raadin oo reerka kusoo raadinin oo ilaahay kugu ogyahay oo ilaahay igu ogyahay rabbi baa iga sareeya oo sabab ma fahmin marka maamo oo waxaa jidha oo awoogeed uu qabo ogaadeena waa dhaway timid aa jidha maamadaasaan intaa is aragnaa waxaan ku yidhi eedda magaalo maxaa laani gabadhayda anaa dhalay gabadhayda maxaa dhacay baa eri maxaa maale wuxuu yidhi markaasay tirmaandhe aniga gabadhaada ilama joogto mana ii imaado maxaa la dhahaaye laakiin markay imaado guriga oo adeerada soo raadiso waa kula soo xiriirinaya haye ilamay soo xiriirinin gabadhi waxay tiri way maqan tahay waan kuula hadla $100 ay kuu soo diraysaa 100ka xataa bahdil aniga lay bahdilaya xataa layguma soo qorin wiilka inta lagu soo qoray baa waxaan ku yidhi hooyo gabadha ma adaa dhalay mise anaa dhalay markaasuu yidhi adaa dhalay ma hadday gabadhayda tahay oo run aad sheegaysa inay iyada soo dirtay magacaygoo saddexan ha ku soo qor okay marka su-aalaan ku weydiinaa haye anigu midaan kuu sheegaa haye abaa dulmiga noocan waa soo arkay haye wax walba soomaali inay samaynan waa ogahay laakiin hal midaan diidanaha anigu haye ma reerkaas oo dhan qof wanaagsan maad ka weyso oo tirada war jacdhaha war ilaahay intaa u wacdo u tagtay reerkii oo dhan intaa u tagtid oo qof wanaagsan ma laga waayay salaamu calaykum walaale wacalaykum asalaam odaga aabbahooda nin aad naagaha u guursado wey uu ahaa markuu dhalinyarada ahaa haye ilmahana waxaa isu keena waa aabba hooyo isuma keento haye reerahan bahbah wax la dhehe yaqaanaan haye bah ahaanna xaqiiqda markaa kaaga waramo midka bah ahaan markay ninka ugu weynaa halkaan jooga haye asaga xataa shaxshax ma aha marka ma waxaad idhihi kartaa reerkii oo dhan wax la qaata ma jiro bahdaas wax la qaata ma lahan ilaahay baa ilaahay ninka ugu roon waa ninka inta jooga asagana ba hoosuu mariidka yahay korkuu kaala qosla hoosna wuu kaa goynaa ilaahay baa iga saray ilaahay dartiisaa u soomana aniga okay marka adigu reerkaaga caawo marka qoyskaaga caawo muu sheegta ila ninkaaneeto reerka adigu ku dhalay caaway salaamu calayka qofta la dhoo ii sheeg hana
أنا ها أنا ها أنا وأكوش no list آية ها اوكي واكو فاهمين اوكي ummadda Soomaaliyeed ilmahaaga intee joogaan gabadhaada intee joogtaa waxay joogtaa Maraykan Ohio joogtaa waliba Columbus ay joogtaa Ohio Columbus ay joogtaa waxaana processka oo ka qaada waddanka kala dhaca Cabdinaasir Xigta Faarax telefonkiisana waa kuu soo diray waa kii ugu dambeeyay aan kuu soo diray waa gabadha adeerkeed oo lagu galo safarada waa gabadha adeerkeed waxaa nambarkiisa soo dirtay kan ugu dambeeyay adeerkeed kii dhan oo waddanka ka qaaday waa abarta iyo kulli processkooda dhan gacanta ku haya walaaqoodii haya ay ku bixeen kiiska ku bixeen oo dhan waa haya okay ummadda Soomaaliyeed ee ku dhageysanaysa maxaa ka codsanaysaa ka codsanaya ummadda Soomaaliyeed islaamka ee dhageysanaysa in Ilaahay dartii wax uu qabtaan walaal ayaga ahayn bedki ha oynin xabiibti waa lagu istaagaa haye أنا قبل أصدق سيدة إيه مع سنتا رحمن كعرفتين وبد لكن حطيت قبل قفلت كشتو مسكح كذا صارين ومد إسلام كويس ما علينا عصر هيا فيري أباي مين مقشع ما معاش مين مقشع waxba ha isciilin kowda Soomaalidu ahaayo degan ayay arrintan u taalaa waana lagu maqlaa ahaayo Soomaalidu degan qof walba hooyaa dhashay keed oo wadaadaha degan oo la dhaho aadan xita duulaan jecel aadan qabaan loo yaqaan hadday isqabanaa cidda dhan way wada degan yihiin okay arrintan waxay ma aha laakiin waa nin waayeela abi waxba kama yara may Ohio Columbus Soomaalida Ohio Columbus degan waa Soomaalida ugu fiican oo ugu fircoon aan aaminsanahay oo isqaban karaan waxa laga yaabaa arrinta inaysan ogeen aniga dhageyso ayhana dad aan dirsaday oo magaca Mareexaan ah baan u diray inta la tagay baa dheer arrintan ma galayno waxaan ku walaalo shalay walaalnimaad ila hadashay oo aad tiri maxaa la dhahay aniga walaalka baan ahay anaga meel wax ku wada baranay dad gabdhaha iyagii baa tahay waa kugu tagahaya kabacdina asagoo bedelan buu soo hadlay niyo hadee ninka aqaanay oo walaalkay ahaa oo hadda hadalka wanaagsan gudaha hadlaay ma aadid baan ma nin qabiil qaaday baa tahay baa haye ويرادا أتا أسايب فهمت أنا وضعي بركة واحد أول بقيل بارد نسي هنتا قف كم فرح السائر وكان حسا هنتا كان كحنا غضب على وضعي أوكي قبل طبعا حتى مركا أنت كنت جيس الله هذا وهي يبلغ قاعدة إن إله اللي دوت يقول تجدون تبعد إن التليفون كذي هاي حتى ويقول تحجرين وين إن أنا جوا على ماي oo annaga meel ku wada qorna xataa way ilowday ma garatay dad kale taa u diro waddanka la joogaa jira taleefanada mar walba la ii soo diro oo la ii keeno ma aha mid maxaa la dhahay aan aniga maartay inta waco markaa ku waca lelee walaale haddee waxa waa kuu qaban lahay in annagu reerkaas waan ka baqaynaa qof walba wuxuu leeyahay reerkaas waan ka baqaynaa oo maxaa looga baqaa marka ii sheeg leeyihin maxay tahay baa alla ka cabsi aan ku fadhiyaa maana Nairobi daana ka dacweyn karaa may maxaa looga baqaa reerka ii sheeg ma ogidoo waxay qabaaneen ana hadaan alla ka cabsanayn adoo gacanta u gelin laakiin alla ka cabsi aan meel walba ku fadhiya iyo kelinimadayda ku faraxsana maya insha Allah biidnillaahi kariim insha Allah biidnillaahi kariim reerkaasna waa qoys Soomaaliyeed ayagana waxaan jeclaan lahay dhagahooda inaan dhageysto waxaasay wax u jiraan إن شاء الله بإذن الله كريم عبسنا إلهي بعد ذكرت كله بلو آدم سكنا فلا ولي جني الله لقى بقى حق أنت كتاج أنت حق كتاج هذا إلهي أمدي سوحوا لهاي أمدي أمان جلي قال حد هدو نقض هدا وناج كان دلائي بقى أقولين دقي ساعتها ورت وحلا قاعدة كان دلائي بقى أنا أقولين إن الماء أنا جحرير يا رنو
maxaa adigu maxaad geysatay marka maxaa adigu ma wax baa jiro qarinaysa haddaana kur dhegayso aniga rabitaan hadduu jiro waa kula jooga laakiin aniga axmed waaba kala dhammaanay wax intaa waa garoobaynaya oo maaragtay hadba nin baa guursanaya haddaa rabo soo uma tageen ma wax kale maa jiro adigoo aad qarinaysa waa cilmaha uu kugu diidaa wax adiga khalad aa samaysa maa jiro ilaa hooyaate qof aana khaldamayn ma laha adduunyada hooyo anigu maalinba 1000 jeer baa khaldamaa maya waa la qaldamaa laakiin aniga asaga qalad hadda naga dhaxayn karo oo maaragtay sababta dadka hadday kala tagaan wax qaladoo naga dhaxayn kara ma garanaysaa maya ma fahmin maya qofka cugdu inaa kala tagnaa iigu dambaysa kowdhe guri uu leeyahay iyo suu eegyaa gurigiisa iyo dadkiisa see u egyiin wallahi inaa carruurtiisa hadday igu hiiganaysa aanan garanayn rabbi baa iga sarayso rabbi igama sareeyo wallahi carruurta naagta kale u dhasho wallahi aanan garanayn oo suuraddooda garanayn caawa hadday igu hiiganayaan inaanan garanayn carruurtiisa okay agtayda hadduu cadow ku haysto oo carruurtiisa lagu laynaayo halka aan maraayo inaana fiirin baa la arkaa oo ka dhaqaaq sababta maba garanayo qof aadan garanayn maa u irin ka dhaa may aniga su-aashayda weli maadan fahmin su-aashay tartiib aan ku fahansiiya maba garanayaa ku yidhi asaga inaan kala tagnaa iigu dambaysay intaadan kala tegin may meeluu joogaanan garanayn aan ismaqalna xabiibtii caasho aan isdhegaysana maama intaadan kala tegin aa ilmaha isku dhasheen wax dhibaato gooni ah oo ninkaa u geysatay oo cuqdad kaa qaaday ama wax ficil ah ama wax gooni ah aad u geysatay ninkaas shoog yacni ninka qofka markuu leeyahay cunugteeda lama hadlay wax un baa jiro ilaan qofkan wax la-aan ma ku waxaysmaayo waagaa soo noqdo xataa been ma sheegaayo ilaahay baa iga saree waagaa imaado xataa soo noqdo wuu i wanaajiyey wayna soo hadla duweegsa qadiijo ma imaadaa maasha allah haddaa imaada deerkaana boroseys ku jirayo inaa ka burburiyay diidayeen si wanaagsan ay iila dhaqmaya xataa wiilkaan inta jooga wuxuu yidhi hadda fiisaha aniga laygala kormaray halkaa lala tegaya lagaa rabaa aniga soo walaalkaa maahay waxaasoo dhan way dhahay laakiin reerka markay gabadh ilm reerku tageen kabacdi sanad kabacdi reerka way wada bedelnaya waa lay wada xumaynaya xumaantana jeestaa laga wada watay su-aal maku weydiin karaa su-aashaydan kugu soo celinaya hadda reerkan adigu haa imaya iyo waa sameeye ima sameyn baan kaa rabaa anigu reerkan intaadan kala tegin aad ilmaha u haysay oo uu ku qabay wax gooni ah oo dhibaato ah ama colaad ah ama aad khalad aad adigu ka samaysay maa jira ninkan oo yacni anigu ninkaan ka sameeye oo qalad oo ilaahay abuurtay ma jirto aabihiisaanan dil hooyadiisaanan dil walaal baana ka dila hadal xun baana odhan olli waa kala tagna un kala tagi aa kala tagtay muu ku faraxsanay mise waa ku xumaa asagaa garanaya taas markasta waa dareemi kartaa dee waa ninkaaga hore markii lay furo oo laygu dhuqanaya lagu fura musqul ma ahaani markii dambena dalqadayda ugu dambaysaa ka qaatay marka micnaha raalli kama ahe inuu ku furo ninkan ma aqaan wallaahi ani kale kolley hadduuna raalli ka ahayn markuu i furay anoo taaganoo weli cadadi ka bixin naa kale ma guursadeen okay waa mahadsan tahay intaasaan rabay inaan ogaado insha allah biidn illah ohio columbus waa laga hurdaa waaga markuu baryo videogan waa daawan doontiin islaamnimo hadee jirta soomaalinimo hadee jirta reerkaas halela soo hadashiya anigu xal baan raadinaya hooyo soomaalida dhibaataysana qof walbo soomaali oo islaam dhibaataysana ma u damqan kara maanta hadduu wiilka walaalkii asaga isoo caban laba u hiilaan ummadda soomaaliyed ma ii kala saarna mana ii kala socno ummadda soomaaliyeedna waxaan ilaahay ka baryayaa dadka dulmiga dadka ku haya ilaahay inuu dadku xaqaa tusin number 1 number 2 dadka hadda raba inay dulmigan sameeyaanna ha kuwaana qaataan inay hooyo walba saan u ooynayso ee u dhibaataysan tahay ilan walba ee ooynaysa ee cuqubo walba aad ku ridaysaa inay idinka in hortaalo aakhir 2 mitir oo qabri baa nasuga war adduunyada ha isiinin war adduunyadani waa laga taga waa 2 mitir oo qabri ah marka waxaan idin leeyahay reer ohio columbus waaga markuu idin baryo fadlan nambarkayga waa 46 76 hal 54 eber 5 46 76 hal 54 eber 5
nambarkayga waa kaas Ohio Columbus soo waca especially waxaan jeclaan lahaa culamaa u diinta Soomaalida ee Ohio Columbus joogta wadaadada Soomaalida anama kala aqaana wadaadada Soomaaliyeed ee reer Ohio Columbus oo culamaa u diinta ah ee garta Soomaaliyeed kala gooyaan u baahanahay wax kale uma baahni islaamnimada Soomaaliyeed wax ku raadinaya maama waad mahadsantahay maama caasho khayr Allah ku siiya adiguna ilaahay dambigaaga ha dhaaf ma fahanday waana kuu soo duceynaynaa oo waxir iisu qofan blog saaray waan kuu soo duceynaynaa insha Allah gabadhaada ilaahay inuu idin aan hadda ila soo hadasho waxay ku tiri yaa waaye habarta hooyada lalta waa u qoray insha Allah ana la hadlaa waa shukaamina bal wixii khaldanna waan meesha waa ka saarayna insha Allah biidin Ilaahi karim adna calooshaada 12 sano ooynaysi waa ku ogahay hooyaha tahay ma fahantay 12 sano ooynaysi oo caloosha ku xirneed oo ooynaysi adna waxa waaye adiguna waxa waaye calooshaada xira insha Allah biidin Ilaahi karim culamaa u diinta Soomaaliyeed cuqaasha Soomaaliyeed dadka Soomaalida oo Ohio Columbus degan waa dad aan ku kalsoonahay waa dad wali wax igama soo galan hadda koor wax iga soo galan way caawiyaan marka kalsoonida aan ku haysta inay igu caawisaan aan rabaa waana mahadsantahay xabiibti assalaamu calaykum waa idin salaamay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qowka iisoo qoray ma xanuunsatay hurdo ay haysta hurdo maqasheen walaalyaal gabar ay soo wacday Soomaaliyeed ee xanuunsan waxay tiraahday hana markaa Facebook gashid ummadaada Soomaaliyeed iyaga soo ducay kaligeed ma aha inta islaam oo Soomaali ah oo xanuunsan dhammaanteen ballahna wada caafiye qofka xanuunsan ee Soomaali ilaahay waxaan ka baryaa ilaahay inuu caafiyo midaas waa mid afar faatixa umarna bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin آمين الله waxaan rabaa inaan idiin sheego gabar Nairobi bay ka soo cabanaysa idina ilmaheeda laga haystay ninka jooga Sweden oo ninka uu isoo wacay okay qofka xasuusta ninka uu isoo wacay mashquul ahaa uu isoo wacay mashquul shaqo ku jira in badan buu isoo wacay marka dambe uu soo hanjabay qoraalka hanjabaadana waxaan soo geliyay Facebook-gaygan soo geliyay marka ninkaas soo hanjabay waxaan u sheegayaa walaal anigu sharciga Swedish-ka aqaana sharcigan kula tiigsana Sweden-na waa imaana sharciga aqaana anigu booliiska Swedish-ka anigu aqaana cid kale ma aqaana Soomaalnimo iyo walaaltinimo iyo islaamnimo iyo waa dhamaatay saaxib ana hanjabaysa waxa ugu leedahay maxaa lagu dhahaa ii sheeg wixii ka imaado waa isla xisaabtamayna ani aad wixii ka soo baxa adaa mas'uulka ah itimiis waa ku dila waxa rabaa ka sameeyna waa intee joognaa ma taqaana marka la isdila adeer waxa ma yeelay inaan joogo taada kale marka anigu isaawic wixii ugu dhahay ma taqaana sidee u dhihi kartaa xeef adeer uma aha kuma aha adeer xeef de sheeko anigu ila dhashtay xeef sidee u dhihi kartaa kula adigu kula dhalan kara anigu adeer igugu noqon waay wewe waa soo hoyata adeer xeefna adeer kuma ah waxba ku qaraabana darto ku sheegay xeef anu ila dhashtay wewe mana iga xigtid hadda adigu qabiil xanuunsan tahay ord xanuun qabiil haduu ku hay adeer Allah ku caafiya عفسي مسامحة إذن لا Ohio Columbus إذن كإذن سوى واجا مركو إذن بري يصوّعوا أنا جو فيد كذا كالسحدة إيها سوى حلو شقاء وكلها بيم إذن شيء هبين كهال سعدال جار واسحدة
habeenkii hal saac hadaa la gaaro ani waa khuuriya been ma idin sheega ma soo jeedo subaxda shaqo waalan baan galaa marka conference shaqo waxbarasho aan iskugu jooga meeshaan inta marka waa daalaa aad baa u daale raalli noqdo hurdo ay hayso assalaamu calaykum ani iyo caalankayga bulug waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maalinta ha idiin wacnaato habeenka ha idiin wacnaado subax wanaagsan habeen wanaagsan duhur wanaagsan casr wanaagsan soomaaliyay tooso isku tiirsada hadba kiina taagdaran taageera weligiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu qalbi uran waa mahadsan tahay